madaxweyne ku-xigeenka Puntland Cabdulxakiin Cabdullaahi Xaj Cumar Cami ayaa garoonka diyaaradaha ee magaalada Tangarowe kula kulmay wafdi samafalayaal ah oo ka socday wadanka Mareykanka iyo Australia kuwaas oo diyaaradii wada ay ka soo degtay garoonka diyaaradaha isla markaana wafdigan ayaa ku wajahan degmada Buuhood ay ka jiraan xaalad bini'aadanimo xilli laga soo sheegay halkaas inuu ka dilaacay cudurka shuban biyoodka wafdigan ka socday dalka Mareykanka ayaa wada daaweyn iyo qaboojiyaal madaxweyne ku-xigeenka Puntland iyo wafdigan oo ka wada hadlay caawinta dadka tabaalaysan ee Soomaaliyeed gaar ahaan Buuhood ayaa waxaa mid ka mid ah wafdigaasi samafalayaasha uu ka waramay in dadka Mareykanka ay arkaan ujeedada ay u soo direen iyaga isla markaana ay ku faraxsan yihiin inay arkaan dadka walaalahooda ee dhibaataysan ugana warbixiyaan xaaladda ka jirta Soomaaliya madaxweyne ku-xigeenka Puntland Cabdulxakiin Cabdullaahi Xaj Cumar Cami ayaa dhankiisa sharaxaya ujeedada ay ugu fasaxeen gaarsiinta iyo soo kormeeridda wafdigan dadka dhibaataysan ee ku nool degmada Buuhood isla markaana ka codsaday in la caawiyo dadka dhibaataysan ee Soomaaliyeed waxaa farxad noo inaanu soo dhaweyno marti ka timi dalka Mareykanka iyo Australia ku soo dhaweyna Puntland iyagoo runtii u yimi abaarta ka dhacday dalka inay wax u qabtaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto socodkoodu runtii wuu sii baxayaa waxayna degayaan oo aan u fasaxnay anagu inay ka degaan magaalada Buuhood oo ayaamahanba uu ka socday shuban biyood baahsan dadkuna aad ay ugu dhinteen marka inay caawiyaan dadka markii ay warka maqleen ayay u yimaadeen waxay qaban karaan ummadda Soomaaliyeed Soomaali oo dhan ayay u qabanayaan maaha qabiil maaha yani xisbi maaha cid gaar ah waxay u yimaadeen si guud iyo dan guud iyo inay dadka caawiyaan bay u yimaadeen waana uga mahad celinaynaa waana soo dhaweynaynaa aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan qaabilo Puntland insha Allah waxa uga qorsaysan marka dambe yimaadaan sidii haddaba ii sheegayeen inay ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogtaba waxay u qaban karaan u qabtaan insha Allah Ahmad Sham on Cable TV Garowe.